cutubka ciidanka Talyaaniga ee taakuleynta iyo wada shaqeynta shacabka ayaa maanta agab ku wareejiyay xiriirka ciyaaraha feerka iyo tenniska ee Soomaaliya kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay garoonka Wish ee magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiinta ka socotay dowladda Talyaaniga, agaasimaha Radio Muqdisho iyo hoggaanka xiriirada ciyaaraha feerka iyo tenniska Soomaaliya ayaa si wadajir ah u kormeeray qeybaha kala duwan ee garoonkaasi uu ka kooban yahay. Ali Xuseen Cusmaan oo ah gudoomiyaha xiriirka tenniska Soomaaliya ayaa sheegay in qalabka maanta lagu wareejiyay ay baahi weyn u qabeen, isagoo uga mahad celiyay dowladda Talyaaniga gaar ahaan madaxa cutubka ciidanka Talyaaniga ee taakuleynta iyo wada shaqeynta shacabka Master Bruno, kaasi oo yaraantiisii Soomaaliya wax ku soo bartay aadna u fahamsan dhaqanka suuban ee Soomaalida. mahad gaarna waxaan u celinaynaa dowladda Talyaaniga iyo saraakiishoodii oo halkaan goobjoogna leh oo qalab nagu deeqay oo tenniska runtiina aad ayaa u soo dhaweynayna baahi weynna waa u qabnay. waxaana maantana waa maalin aad nagu weyn, baahi badan aan u qabnay qalabkan sportska aqbalka naga aqbaleen berigii aan wada fariisanay iyo donationka ay noo keeneen mar labaad iyo mar saddexaadba waa u hambaleynayaa. waxaan kaloo si gaar ugu hambaleynayaa Master Bruno oo halkan iskuul ka dhigi jiray 80-meedii iskoolaadkii Soomaaliya oo Talyaaniga ee magaalada Muqdisho oo aad aqoon fiican u leh. Cawil Geelle Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka feerka Soomaaliyeed ayaa goobta qalabkan lagula wareejiyay waxa uu ka sheegay in hiigsi fog ay ka leeyihiin xirfadan, isla markaana uu rajaynayo in qalabkan cusub ay uga faa'iideysan doonaan sidii loogu talagalay. sidoo kale waxaan anaga si gaar ah ugu mahad celinaynaa ciidamada Talyaaniga deeqda in soo gaarsiiyeen Simig. saa ogtihiin xiriirkeena feerka waa ka duwan yahay xiriirada kale sportska dalka ka jira marka loo fiiriyo xiriirka Talyaaniga iyo anaga naga dhaxeeyo, maadaama iyagu ahaayeen asaasayaashii feerka. mar labaad waxaan u mahad celinaynaa, waan ku faraxsanahay. waxaan rajaynayaa inaysan noqonin markii ugu horeysay uguna dambeysay, laakiinse ay noqoto deeqahan oo kale siday u bilaabmeen haddii Ilaahay yiraahdo wada shaqeyntiina ay hore u sii socoto. madaxa cutubka ciidanka Talyaaniga ee taakuleynta iyo wada shaqeynta shacabka Master Bruno ayaa ugu dambeyntii munaasabadani ka hadlay, waxaana cabiray qiimaha ay Talyaaniga u leedahay garabsiinta ciyaartoyda Soomaaliyeed. Giovani aiutano le ragazze e i ragazzi che praticano questi sport, quindi sono contento. soo dhaweynta wacan aniga iyo tiimkayga waxaan ku faraxsanahay inaad suurto geliseen inaan taakuleyno ama ku gargaarno qalab isboortis dhalinyarada. si gaar ah taakuleyntani waxay ku socotaa caruurta iyo dhalinyarada, gabdho iyo wiilalba. dowladda Talyaaniga iyo aniga horey ayaan u joognay Soomaaliya waayihii wacnaa. sidoo kale inaan caawino xiriiradan iyo dhalinyaradooda waa ay naga mudan yihiin. dhalinyarada waa in la siiyaa ahmiyad weyn si loo gaaro bulsho nabad ah. di supportare. Liibaan Lugcad, warbaahinta qaranka, Muqdisho.